soo dhawaada muuqaalkan waxaan rabaa inaan ugu hadlo kulankii hadda soo dhamaaday kulan mucjisa soo dhamaaday Man United wajigana leedii ma barasho wanaagsan maxaa kaalid 13aad iyo 14aad ee dhigata saa u dheelaysi Bruni barasho wanaagsan mar labaad kooxda Liverpool ahayd ee hoggaanka Premier League guys inta loo tagay gurigooda lagu yiri libaax qoye bisada u maleen Banoni ee maanta Man United soo bandhigeen guul ay u qalmeen laakiin taageerayaasha Man United waxa guul iyo dhibicdan ay qaateen waxa ugu muhiimsan kooxdooda Banonigan ay soo bandhigeen ma aamine kooxdana saddexdii kulan u dambeysay laga badiyay wiliba isku daba xiga Manchester United barasho wanaagsan mar kale wajigana daaleedihiinba barasho wanaagsan koox dhan inta soo baxday horyaalka koox hogaaminayso godka jilco la dhaha taageerayaasha Liverpool fan badana godkaas geenayna kuwan tadawma ma u badinina masideeda ugu badinina Man United ka jaban tahay maya kama jaban Man United Liverpool waxay iloobeen taageerayaasha Soomaalida ee Liverpool kooxdan inay tahay kooxda cadawgooda ugu weyn sababta waxa waaye Man United 20 horyaal ay haystaa Liverpool ne 19 that's why Man United uma ogola Liverpool in horyaalku guuleysto Manchester United ay barasho wanaagsan mar kale ay leeyahay barasho wanaagsan Banonigan hadda soo bandhigtiin maalin walba kulan walba horyaal kamid ah hadda saan loo ciyaartiin meesha joogtiin xaqiiq waaye ma joogisiin waa soo baxaysiin barasho wanaagsan nin la yiraahdo oo kaarte dhaxdo maanta baabi'iyay Banoni walba Liverpool isku dayay inay qaataan dhaxda loo galay Onana difaaca dambe maanta Man United waa fadhiyay حتى دالو او كروس لغا اقون كروس وكينا مات مسراوي لولا مو جبسده نيكي اللي دهاي كوالها مارتينيز سي وحياش هادلس استراكر ماتا عادي معنا نمبر 9 كي ما يونايتد لو شيغ بسانا لو دليا دلقada ابو ماشي اسكا قبط باش نو جانس جول كيبرك وليبا كلنكا انتو بلان كور waxa muuqaal la soo galiyay ciyaarta ka hor ninkii Gary Neville ahaa oo baraf garoon gelinay iyo Jamie Carragher oo baraf ka soo xaqay Man United waa loo qosle runni uma leeyeen barasho wanaagsan Man United ay barasho wanaagsan waa wara waji kale leeyay Man United difaaciyada Man United Onana waxa dhan maanta caadi ma ahan laakiin Liverpool waxay soo bandhigeen Banoniga ugu liitay maanta ee Banoni soo bandhigeen inkastoo gool loogu hormaray ee keeneen ay u saariyeen haddana gurigooda kubadii loogu bartay inay ku soo bandhigaan waliba kulamada Big Six-ka aad maanta ugu hooseeyay ninkii aanu dhahay Banoni fiican maatay ninkaas laagsido Real Madrid ku rabaan wax ma difaaca karba ilaa Spain waa ognahay kubadda hoosta iskaga keenaa difaacu maanta waxa laga rabaa shaqo inuu qabto weer laga marabo wallahi waraa sugaa haduu Real Madrid aado ninkii aanu dhahay waraa sugaay Van Dijk maanta meeqa jeer uu amtaqana oo ku qeyliyay mar walba booskiisa ka maqnaa ama Diallo goolku dhalinayo asaa laga soo dimaray laga keenay crosska waa maqnaa Manchester United mar kale ay leeyahay barasho wanaagsan waa waray hadda saan u dheelaysiin horyaalka meesha joogtiin qasam ma ina joogtiin soo baxa laakiin Banoni amaant soo bandhigteen Harry Maguire hal sano siiya waa ilaa bakaas maanta Banoni walba Liverpool isku dayay true ka dhaxbixiyaan wala soo qabanay meeqa kubado isku dhigma taqana laakiin ilaa hadda maankii waxa ka go'ila Banoniga uu cunay Janis u dambeeyay hadii uu dhalin lahaay ninkii Roy Keane studio video xuday haduu goolka dhalin lahaay sida meesha qolka Libisk hal sano lagu sii lahaay hal sano extra rabayna siiyaan meesha ku saxiix lahaay last minute 96 daqiiqo haduu dhalin lahaay mac salaamo Liverpool oo kala tagi lahaay laakiin horyaalka hadda ayuu noqday dhadhankiisa la helay kulankaane lama filayn horta maanta inuu ku dhamaado Barajo laakiin dhadhankiisa maanta horyaalka cusbadiisa soo baxday laba dhibcood dhiga Liverpool dhig laba dhibcood ya godka jilco aan laha Man United hadda ka horaatado ugu badiyay maanta 7 ama siina may fantasy may Coca siina
heshiis abuu had ma ku taasaan level habyana ay ku dhahay baxeen taageerayaasha Man United waxaa leeyahay hambalyo Bruni aad u qalanteen amaad soo bandhigteen Manchester la yaqaanay amaad soo baxday haddii Brunigan joogtayaan xaqiiq waxa ah meesha ma joogayaan war muuqaalka hadduu ku soo gaaro sii shargaray waa nagu dhageeya meesha horta fiiri inta igu xiran iyo inta aanan follow isoo ahayn waxaa badan inta follow ahayn daawashada muuqaaladeeda badan marka waxay ka codsanaa muuqaalka hadduu ku soo gaaro follow dheh laagtaada u baahanahay soo meel dheer u gaaro asxaabta nagu cusubay waxaa idin leenahay page-ka follow soo dheh laagtaadana u baahanahay lacag ma kaa joogto lacag ma lagaa goosanayo free waayo soo muuqaalka meel dheer u gaaranne laagta muuqaalka soo saara hambali ayaa idin leeyahay Manchester United fans maanta Bruni dhaafaa soo bandhigteen inta kulmi doona muuqaalka xiga sidaas nabadgelyo